بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan u maleynayaa maalintii hore waxaynu joognay deegaanka xeebaha iyo kalluunka iyo magaalooyinka xeebta iyo baan joognay qaybta buugga ka hadhay oo aan anigu u arko inay qaybta ugu muhiimsan tahay waxay tahay qayb lifaaq wax la yiraahdo suugaanta deegaanka iyo chapterkii hore oo inaan wax badan ka xusin oo taariikhdii Soomaalidu soo martay duulkii maxaa la yiraahdaa xadaaradii hore ee caalamka soo maray Soomaalida xiriirka ka dhaxeeyay waxyaabaha aan kaga soo qaatay baa buugga ku jira laakiin markaynu u soo dhaadhacno waxaa jira chapter suugaanta deegaanka la yiraahdo gabayo badan baa ku jira oo rag Soomaaliyeed tiriyeen aan ka xusi karo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan gabay uu leeyahay waxa ku jira abwaanka la yiraahdo Xaaji Aadan Afqalooc gabayga maakhirkoos la yiraahdo waxa ku jira abwaanka la yiraahdo Aadan Tarabi gabayga dhilan la yiraahdo waxa ku jira Allah u naxariistay abwaankii Soomaaliyeed oo loo oran jiray yamyam gabay uu leeyahay oo Soomaalida iyo taariikhiyan meesha ay ka timi uu kaga hadlayo marka waxaan xusi lahaa gabayada gabay kamid ah inaan soo qaado oo chapterkan gabayada maadaama waxaan taabanaynay waxa kale jira heshiisyo lifaaqa xaqooda inuu ku arki doonaaye gabayga aan ku horeeyo gabaygan dhilan baa la yiraahdaa environmentku ama deegaanku waxa uu soo saaro ayuu tilmaamayaa marka gabaygaasaan abwaankan oo aad u qurux badan baan soo qaadaya cirkoo dhalay seerma weydo dhabo dhamaystirii dhaqso u galayo dhidhiibsaday waqal mid dhegan nugulo sagalka dheerina ku dhaacanayo fad dhaashaday dhinacyada isku xidho marsaduu dhigay ay isdheehanayso onkudka dhugdhuglihiis dhimi waayo hilaacu isu dhaartay dhoola tusko daruurtu dhibicdii isdhaafsanayso dharaarda ay rooban dhaxan wadano dhulkoo qoyay ciidu ay dheregto abaar dhimatiyo barwaaqa dhataca jilaal dhoofay dhiirigii yimiyo dhirtuna ubax iyo udgoon dhugucdo shunidu dhoorinayso dheef malabo dhawaaqa rahaad dhegaysanayso xareed dhan kastaba la dhaansanayo walwata xareed wata xareed dhan walba la dhaansanayo dhawaaqa raha aad dhegaysanayso dhalintu subaxdii dhalool ruqsato mid ay ku dhacdaba iyadu dhugtanto lab iyo dhadig fiidkii dheelayso dhaantadii iyo sacabkii isdhaafsanayso dhaqankii ku arooray waa dhaxalo gadhoorka dhitada la dhugan waayo dhanaan iyo dhayba la dhami waayo dharigii laga riday dhardhaarada oo cuntaba laga dhaartay la iska dhigo dhaayuhu ku samraan dhifdaymada oo midabka dhergayaan dhulka qura waka miyaan la dhergayn dhaliil ma leh gugu dhamays yahayo dhiriqdu adhigii dhogorta u gasho geeluna dhaafin dhaaxba xeradiiso dharkii maydhay dhoobigii jirayo dhimbiila riday baarqab dhiiraniyo dhalowda doobta galowgu dhiilaabo dhacdiisu u taallo kayn dharab laho nirigtuu dhalay hooyadeed dharqato ku dhowraya meeshii uu dhigayo dhaqaaqil ilaasho dhaafayso dhengada ka xanaaqa aad la dhacdo miciduu isku dhilayo dhiig la rabo dhibiibiyey dhabisha xeexeedo dhididka isku qariyay dhabishaha oo dhudhumo ku cartamay dhirtii laayo labada dheegna dhoobadii ku sito xarago dhimir socod u dhultamayo dhareeriye cadho hinaase dhago u kala dhacay labada qaar dhalaco ma dhubnee dhumucu kala baxayo dhexduna ka yaraatay tii dhudiyo bidhaan dheere dhamal dharkayn leego u dhashay dhogor dhuuxad midabkana oo waxaan rajaynayaa hadhow inaad heli doonto oo aad soo qaadi doonto baarqabka dhuuntiyo ka higooday dhuuca dambo ma dheeldheele dhagari saarantaho dhirbaaxada loolka dhaax ku xuno dhowr hore dilay dhiiran qabashada oo libaax dhigay xerada soo dhacayoo dhurwaaga ka adag dhammaan bahalo dhifaan iyo qoodhba dhamac ka shido kuraygii dhaadi jiray ku dhici waayo wixii u dhowaada dhaawacayo intuu dhirfay dhiif dagaal qaba oo afarta dhudhun hilibku dhaaban yaho calooshu dhiibsan tahay mudkiyo dhaysto kurusku ma dhinee dhadhaab yahayo luqunta dheeri qaradu lebi tahayo hashiisu dhicis ma leh dhammays mooye dheehooyin qaalmihiisu aanay kala dhicino dhalanka quruxdana la dhaygago oo la dhaafsado dheeman iyo luulo ninkii dhaqay dhuuxa kaga yaalo dhugato dishay awr dhaloontiyaho dhadhamin waaye geedahoo dhalxasho dhuuniga uga go'ay dhibtuu qabo oo dhowr iyo 20 jirihii dhex taagan yahay wuxuu sifeeyey daruurtii buu ka soo bilaabay waxaan u maleynayaa hilaaca iyo daruurta iyo soo kacay iyo waxaas oo dhan waa la arki karaa oo
oo daawadayaasha waa tusi doontaa baarqab dhaqankiis buu sifeeyey infa deegaanka waxa soo saara neefka quruxda badan deegaanka soo saaray ubaxa faraha badan ee kala sheegay ee kala noocan deegaanka soo saaray marka deegaanku wuxuu u baahan yahay la dhowrto deegaanku wuxuu u baahan yahay in la dhaqaalaysto deegaanku wuxuu u baahan yahay in dhug iyo dhaayo loo yeesho marka suugaan fara badan ayaa buugga ku jirta waxaan xusayaa gabagabada waxaan kaga hadlayaa qolo kasta oo adduunyada korkeeda saaran ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu siiyay wax u gaar ah wax guud oo uu basharka iyo bini'aadanka wada siiyayna waa jira shalay baan mar waxaan eegayay sogadara jasiiradda la yiraahdo dhirteeda waxyaabaha ay unique ku tahay oo kaga duwan tahay maartay waxyaabaha kaga duwan tahay caalamka kale marka wadankeenu sidaas oo kale buu u leeyahay wax u gaar ah meel waliba waxa uu leeyahay wax u gaar ah laakiin dadkeeda la rabaa inay dhaayo dhugasho iyo fiirmo u yeeshaan dadka la rabaa inuu deegaanka ku noolaado dadka la rabaa inuu deegaanka nooleeyo waxa iyaduna jirta nabiga calaysay salaam xadiis wuxuu ku yiri qofkii beera geed ilaahay jannadu geed uga beeriya xadiis kale oranayay hadii qiyaamuhu dhacayo oo aad geed beerayso beer waa wax isku xiran nolosha bini'aadanka iyo koonku ahaanshihiisu marka fasahaad dhaco oo xumaan fara badan dhacdo oo dhaqanka laga tago ayay doomaysaa adduunyadu laakiin inta aynu dhaqanka hayno oo ilaahay ku xirannahay oo dhirtaasi waa tasbiixsataa adoomaha ilaahay weeye buuga xagga hore ee dhirta waan soo qaadnay oo soo yara dul maray ayay ku jirtaa waxa ay dhirtu tahay siday u noolaato waanay uun hadlin waanayna socon waa nooshahay way tarantaa way neefsataa waxbay cuntaa waka marka waxa loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed inuu ku baraarugsanaado deegaankiisa inaynu dhirteena ku baraarugsanaano inaynu ku baraarugsanaano guud ahaan deegaankeena noocyadiisa buur ha ahaato banaan ha ahaato dhir ha ahaato ugaar ha ahaato shimbir ha ahaato maxaa la bad ha ahaato kalluun ha ahaato waxaas waa khayraadkeeni waa waynu ku noolahay waa caafimaadkeeni waa nolosheeni marka waxaan ku soo khatimayaa gabagabo lifaaq wax la yiraahdo oo aan kaga hadlayo hay'adaha yarna soo